odayaasha iyo waxgaradka gobolka Hawd oo weheliyeen maayir ku-xigeenka iyo xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Balugwale oo maanta shir jira si wada jir ugu qabtay Hotel Al Hayat ee magaalada Balugwale ee xarunta gobolka Hawd ayaa bulshada Soomaaliland guud iyo dibadba ugu baaqay inay wada ilaashadaan nabadgelyada dalka. xubnahani sidoo kale waxa ay xukuumadda Soomaaliland iyo gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland ku bogaadiyeen hirgelinta doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ee 13 November guud ahaanba dalka uga qabsoontay si nabadgelyo waxa quraan ka hadlaynaa waa inaan u dirno hambaliyo komishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii dadweynaha ku dhaqan degmada Balugwale iyo gobolka Hawdba aanu ugu wacyi gelin lahayn inay nabadgelyadooda ilaashadaan. waxaan jecelahay in nabadgelyada la dhowro, in laga shaqeeyo horumarka, in la sugo komishanka qaranka wax kastoo ay soo jeediyaan loo hoggaansamo. qofka maanta doonaya inuu tan qalqal geliyo waxaan u aragnaa ninaan guna jirin. waxaanu salaan u diraynaa meel kasta oo ay joogaan ummadda Soomaaliland. waxaan uga mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd ee ay u codeeyeen ayaan uga mahad celinaynaa. marka labaadna sida fiican ee u dadaalay kubeeshinku ayaanu iyagana mahad gaar siinaynaa. waxaan ku saddexaynayaa iyo weheliya ciidamada qalabka sida u dadaaleen ayaan iyagana mahad gaar aanu siinaynaa. u dambayn waxaanu leenahay nabadgelyada ruux kasta oo Soomaaliland halkii uu joogo ciidan ha ahaado xusbisa ha ahaade ha lagu dadaalo gacanna ha la siiyo. komishanka qaranka sida fiican ee kartida leh ay u shaqeeyeen bulshooyinka Soomaaliland sida ay u codeeyeen ee sida nabadgelyada ay ugu dhamaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin. waxaan halkan mar labaad salaamaya bulshada gobolka Hawd sida xilkasnimada leh ee ay u codeeyeen ay nabadgelyadooda u ilaashadeen. waxaan leeyahay nabadgelyada ha la ilaashado. waxaan horta marka ugu horeysa hambaliyo anigu u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo uga tagay dadka dhaxal wanaagsan oo aan oran karo maanta Afrika iyo Yurubba madaxweynayaasha jooga wuxuu ka noqon karaa baaldahaba ninka galay taariikhda. waxaan halkan aad iyo aad uga salaan iyo bogaadin uga dirayaa komishanka qaranka Soomaaliland ee doorashooyinka madaxtooyada galay ee qabtay ee sida daacadnimada ay hufan ugu adeegaya. waxaan halkan ka hambaliyaynayaa oo kale dadweynihii degmada Balugwale ama gobolkaba gabigiisaba ka codeeyay. idamka Ilaahay waxaan rajaynayaa doorashadu inay si wanaagsan ugu dhacdo. cid kasta oo ku guuleysatay saddexda xusbi qaran waa reer Soomaaliland. mid kasta oo lagu dhawaaqo hadaan nahay gobolka Hawd anagu waanu hambalyeynaa, waanu soo dhaweynaa, waanu taageersanay. waxaan leenahay walaalayaal nabadaynu u baahanay. kii soo baxaaba waa reer Soomaaliland. qolo wax inoo goyn mayso. ilaahay idinkii mid dalka iyo dadka manfaca Allah inoo keeno. walaalayaal dadkan wada ilaashana. assalaamu calaykum. in aanu abniga iyo nabadgelyada horta la ilaaliyo. waxaanu marka labaadna aanu sheegaynaa doorashadii inay u dhacday si xor iyo xalaal ah. saddexda xisbi qaran ee ka qayb galay doorashada iyo tartanka doorashadana waxa weeyaan cid uunbay guushu ay dul hareynaysaa. waxaanu leenahay xisbiyada kii guuleystayna guusha waad filaysay, kii aan guuleysanin oo inaad ku qanacid weeyaan. halka waxaan ka hadlaynaa maanta waxaan isku nid waxa weeyaan nabadgelyada tan lahay gobolka. marka waxaan leeyahay ujeedada meesha tala waa nabadgelyo inaynan iskaga ciyaarin nabadgelyada in badan bay nabadgelyo haysanay. Maxamed Jiciiro, Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balugwale.